kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinada dunida. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan aan ku falanqayn doono ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo marxaladihii ay soo mareen. Militariga Soomaaliya ayaa sanadkii tan iyo 2012 tababaro caalami ah dowladda Soomaaliya u direysay. militariga federaalka dowladda Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid ka soo kabanaya burburkii xoognaay ee dalka Soomaaliya soo gaara sanadkii 1991. dowladda Soomaaliya ayaa wada dib u dhis xoogan iyo qaabayn ay ku howlgelinayso militarigii geeska Afrika loo yaqaan jiray libaaxyadii Afrika. dowladda ayaa isku daba riday cutubyo iyo tababaro waaweyn iyo xarumo waaweyn oo militariga ee dowladda Soomaaliya ay leedahay. Soomaaliya ayaa u muuqatay mid jilbaha dhulka dhigatay, balse hadda u muuqatay inay ciidamadeedii amba dadkii difaaci lahaa dalka loo tababaro hayo. ciidamo gaaraya 5,000 ayaa dowladdii Soomaaliya xilligaas hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo geeyay waddanka Eritrea, taasoo kor la leeyahay waa u qaadi kartaa awoodaha militariga Soomaaliya. madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa bilaabay isaguna inuu tababaro dibadda u diro militariga saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo askar intaba. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2012 markuu xukunka yimid oo asigana hore ayuu sii waday tababarista iyo qaabaynta militariga, taasoo heer weyn u gaarsiiyay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii hore wuxuu heshiismo waaweyn la galay dowladaha dunida ugu waaweyn sida dalka Turkiga oo xarun weyn oo tababar bixisa laga furay xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Turkigu soo degeen militariga Soomaaliyana qayb weyn ka qaadatay in halkaas lagu tababaro. madaxweynaha ayaa heshiis la galay dhigiisa waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xilligaas hogaaminayay Turkiga. hase yeeshee guulo waaweyn ayaa la gaaray. sanadkii 2017 ayuu xukunka ka tegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana qabsaday hogaaminta Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligaas asigana kor u qaaday habka iyo mushaaraadka ciidanka. militariga ayaa waxaa la sheegay intuu joogay madaxweyne Farmaajo inay mushaarkooda bilaa ay heli jireen iyo gunno wanaagsan. madaxweyne Farmaajo ayaa ku dadaalay in ciidanka Soomaaliya kor loo qaado maskax ahaan iyo muruq ahaanba, taasoo uu geeyay tababaro waaweyn ay ka mid tahay militariga iyo dalka Turkiga. saraakiil sarsare oo militarigana ay tababaro hab casri ah ay dowladaha Masar iyo Uganda ay siiyeen. madaxweynaha xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa la sheegaya inuu xoogga saaray sidii uu dhisi lahaa ciidamo xoogan ee ammaanka Soomaaliya la wareegi karaa gabi ahaanba. madaxweynaha xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorshihiisii ugu weynay ay ahayd inay ciidan xoogan ay Soomaaliya leedahay la tababaro si ay dalka amnigiisa iyo gacan ku hayntiisa ula wareegaan, taasoo uu inta badan uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la sheegay inuu ku guuleystay inuu wax ka qabto ciidamada mushaaraadkooda iyo wax walba ay u baahan yihiin, taasoo ciidanka militariga Soomaaliya niyadooda iyo maskaxdooda kor u qaaday sida la soo waramayo. 2022 xukunka waxaa looga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana xukunka la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahay madaxweyne hore ee Soomaaliya. madaxweynaha xukunka yimid cusub ayaa isaguna dardar geliyay militariga Soomaaliya, korna u qaaday qaabayntooda, howlgeliyayna kuwii uu tababaray madaxweynihii asiga ka horeeyay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tegay ciidan la dhihi karo hab qaran ay leeyihiin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa howlgeliyay militarigaas, geeyayna deegaanada iyo ururka Al-Shabaab ay dowladdu ay dagaal baahan oo foolka foola ay ku wada galeen. ciidankaas ayaa guulad waaweyn ka hoyiyay
meelihii ay isku haleeleen ciidanka milatariga iyo ururkaas al-shabaab. ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay u muuqda kuwa kasoo kabanaya dhibaatadii baahneed ee soo gaartay tan iyo intii Soomaaliya ay dowlad la'aanta ahayd. milatarigii Soomaaliya xilligii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre hogaaminaya lagu xasuustaa ciidan xooggan ay lahayd Soomaaliya. intaas iyo nabadgelyo.